بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إلهي ما مهد إسكال ولا ليال ميلا جوبتان بوحان ديكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبت قليو نحريس يبركوين كتمي حكا الله كوركي نها هاتو موقال كان ولا ليال وحان رباينا كاقهد الله وانكو سوقاتو أصحابتي رسولك أصل أهان كسو جدي قارد أفريكا ama midabkoodu uu ahaa midabka madow diirkoodu uu ahaa diirka madow sida aynu ogsoonnahay diintu ay noo sheegtay qofka muslimka ah ee alla ka cabsada midabkiisa iyo jinsigiisa iyo qowmiyadda iyo shacbiga iyo dawladda uu ka soo jeedo midnaba fadli dheeraad ah oo ay tilmaantaa haba yaraatay ma jirto qofka waxa fadliga iyo khayrka u yeelaa waa alla ka cabsiga sida ilaahay inoo tilmaamay إن أكرمكم عند الله أتقاكم إلهي أكتيس وحا وشرف بدن قفك مركا الله كعبقي إلهي إذنكو الله كعبسك بدن كاسا إلهي أكتيس ودو أيضا تاسي أي جرت هادنا وحين ربنا إنا مبرنو تعلينا هانا ما علمي هانا ما أقونا هان إنا مبرنا أصحابتي رسولك كسوشي دي قارة أفريكا أما كو أبترستا ديرك أما مدبك مدو أفريكانك waxa ugu horeeya asxaabtaas saxaabigii loo yaqaanay Bilal ibn Rawaha oo ahaa tabcan saxaabiga ugu khayrka badan uguna fadliga badanba waxa Bilal uu ahaa muadinkii rasuulka ilaahay raaliha ka ahaadeen waxana uu ahaa nin adoona oo waxa dhibi jiray oo cadaabi jiray gaalkii la dhigi jiray Umayy ibn Khalaf iyo kufaartii kale ama gaaladii kale reer Quraysheed kadib markii uu iclaamiyay inuu yahay qof muslim ah oo ilaahay isu dhiibay سيدنا أبو بكر الصديق إلهي رالها كهذا أي حرية انتو إبسدي أي حر كنجي في وجه الله إلهي وجهي أما إلهي درتي أي حرية صحابي قال وحا كسوغن رسولك أحاديث صحيحة تلماميا إنو يهنن أهل الجنة أو الجنة قلي سيدا ورسولك تلمامي صلى الله عليه وسلم صحابي كلو أفريكانا وحوي صحابي لو يقاني مهجع مولى رسول الله مهجع نينكا ليداهدو مولى ايوها رسولك مولى هو حوي وقف الضونه او الحريه ويان او حر نقدين مهجع وحا كسغن حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثك كو يالا حاكم سورنيه مستدرك كو يالا ايا رسولك وحو عليه الصلاه والسلام صدح با او خير بدن افريكانك اما ددك مدو صدحاسنا waxay kala yihiin لقمان الحكيم لقمان كي حكمة بدنا إيا بلال أو أها صحابي مؤذن كو أها رسولك إيو آدامي جري إيا مهجع أو أها موليه رسولك وحكى له علماء أي تلماما إن مهجع أو أها موليه عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن الخطاب أيو موليه وهان جري أو صاحب سكينا أي وضع أهاين وحنا أها مهجع نين كقيب قريد دقال كي بدر wuxuna ahaa ninkii uu horeeyay ee safka muslimiinta ka shahiida goobta dagaalka markii lagu jiray ee kufaartii iyo muslimiinta ay iska hor yimaadeen isagoo oo taagan labada saf dhexdooda ayaa waran aan la garanayn cid soo tuurtay uu ku dhacay sidaas baan uu ku noqday shahiidkii goowaad ee u geeriyooday dagaalkii Badr marka mihjac culimadu waxay tilmaamaan inay laba mihjac jireen mihjac ahaa mawlihii rasuulka iyo mid ahaa mawlihii Umar ibn Khattab halka culimo kale ay tilmaamayaan in ay isku hal saxaabi ay yihiin sida ibn Hajar al-Asqalani uu tilmaamayo waxa kale oo markaa kamida saxaabada rasuulka ee Afrikaanka ahaa saxaabiga la dhado Rabah waxa uu isaga laftigiisuna uu ahaa nin Afrikaan ah oo midabkiisu yahay nin madow shaqada uu ka shaqeeyana waxay ahayd bodyguard ama inuu yahay xaaris qof ilaaliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam magaciisuna wuxuu ku soo aroray sahih al-Bukhari iyo kutubta saxiix in maalintii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dumarkii uu qabay ama xaasaskii uu qabay markuu ka cadhooday ayaa waxa uu yimi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu oo ka dalbaday in uu nabiga u galo ama gurigii ama qolkii uu joogay nabiga u galo albaabkana waxa taagnaa ninka la dhado Rabah oo ahaa bodyguardkii ama ilaaliyihii ilaalin jiray rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabigaasna wuxuu ahaa ninka Afrikaanka ah
waxa kale oo ahaa nin afrikaana ama saxaabi kale oo afrikaana saxaabigii loo yaqaanay Julaybiib radiyallahu anhu. Julaybiib sida axaadiista saxiix muslimka ay ku yaala iyo musnadka imaam Ahmed waxay tilmaamayaan inuu ahaa nin madow oo aan qurux ku faanin ayuu ahaan jiray qabiilkiisana aan la aqoonin oo ka soo jeeda qaaradda Afrika ama ku abtirsaday jinsiga ama sinjiga madow. waxa kale oo axaadiistu ay tilmaamaysaa in uu ahaa nin dhowaan aroostay dabadeedna ka qayb galay dagaal oo dagaalkaana markaa 7 nin oo gaala ah uu laayay. dabadeedna rasuulku uu helay isagoo oo meyd ah 7 nin oo gaaleedna dilay. deetana wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam 7 dilay isagana way dileen. هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه كان أنو إجا أهذا أنا قلنا أني إسجان كأهذا بتلمام يا رسولك صلى الله عليه وسلم إسجو ميت كيسو يا لربط رسولك عليه الصلاة والسلام أنتي لو قضي حوال مركا لجوتو أما لو أصوم وحكلو كمن أصحابتي أفريكان كأهيد إلى هير الله كأهذا قبل لو يقنع أيمن البركة الحبشية. أيمن وحل كلو يقانا هالحيس أمنا نيسهان حاضنة رسول الله قبل يسو كل سيام سو كل سي رسولك عليه الصلاة والسلام قبل حبشية دو مدو أي أهيد أضون وحي وأهيد نبي محمد آبه وعبد الله لو يقاني عبد الله مركي ودينتنا وحا أي كسو وريكتي رسولك صلى الله عليه وسلم. كدبنا وحا أروسي وقورسدي صحابي قلوا يقاني زيد ابن حارثة رضي الله عنه وحين أولا شويلكي لو يقاني أسامة ابن زيد أو يساقنا أها نين مدو أو هو يدي كراعي حق ديرك أما مدو كراعي أما حق أفريكان مدى كراعي هو يدي أسامة يساق اللفتيسو وحا الله حسابنا إنو أها نين مركا أفريكان أما نين مدو إلهي رالله كهذا ولا نكر اللي يرد أهاي سوق أو داديسو سيدي تبنتير أي كيرتهاي أو رسولك عليه الصلاة والسلام وكرجي أبان دولها أما جنرال كعيدا مدى مسلمين توقص الرأي نبينا وجريو دي سوق أو عيدا مدى أردن مدحو أو عيدا مدى أو أي كم ديهين أسكرتا كتر سنجوتوين كأو حكومة أسامة وحاكم دها أبو بكر يهد عمر يكسونو إلهي دمان تدبر الله كهذا waxa kale oo kamid ah saxaabada Afrikaanka ahayd ilaahay raaliha ka ahayd dhamaantood be saxaabiga loo yaqaanay Wahshi al-Wahshi wa qatil Hamza wa ninkii dilay Hamza nin adoon oo madow buu ahaa waxaana uu adoon u ahaan jiray ninkii la dhihi jiray Jubayr ibn Mut'im. Jubayr ibn Mut'im ayaa ugu ballan qaaday hadii uu dilo Hamza oo ahaa nabiga adeerkii oo dagaalkii Badr dad badan oo gaaleed laayay in uu xor ka dhigi doono. dabadna dagaalkii Uhud ayuu markaa wuxuu dilay Hamza ibn Abdul Muttalib oo ahaa nabiga adeerkii sidaas baan xor ku noqday. markii dambe uu islaamina wuxuu dilay gaalkii la dhihi jiray Musaylama al-Kadhab been alihi Musaylama ninka la yiraahdo markaa al-Wahshi wuxuu dhihi jiray waxa gacantayda ku baxay qof kamida adoomada alle ka ugu khayrka badan iyo adoomada Ilaahay kii ugu sharka badnaa oo ahaa Musaylama al-Kadhab. الوحشي وحنين مدو أو مركا مدوجيس وليبة وياهي مدوجه كمارك وسيحجة الجديد أما مارك مدوجه حدافك إلى هير الله كهذا وانو إسلامي صحابي نبينا ونقضيه وحكلو كمدا أصحاب رسولك مركا كسوتش الدقة رد أفريقيا نكلا رضا عامر بن فهيرة وحو يسقون أهانين الضون ومدو wuu islaamay isaga iyo Bilaal iyo dad kale oo markaa adooma ahaa. kadibna waxa dhibay oo dhibaato badan u geystay gaaladii Quraysheed. waxa iibsaday Abu Bakr as-Siddiq oo markaa kadibna xoreeyay oo uu mawlihi Abu Bakr ayuu noqday. saan ogsoonahayna Abu Bakr xilligii islaamku bilowga waa ahaa ee muslimiinta sida baan loo dhibi jiray ilaahay allaha ka ahaday maalkiisa iyo xoolihiisa wuxuu ku bixin jiray inuu muslimka iyo islaamnimada ugu gargaaro. waana arinta ay ku soo degtay suuratul layl ay kaga waramayso ilaahay uu kaga waramayo wala sawfa yarda ilaahay uu leeyahay anigu oo Allah ahba Abu Bakr isagana raali gelin doona.
waayo maalkiisii iyo xoolihiisii wuxuu u huri jiray jidka ilaahay iyo wejiga rabbi tabaaraka wa tacaala. caamir ibnu fahiira ninka addoonka ah buu ahaa. markii abubakar uu xoreeyena wuxuu raaci jiray adhiga ama xoolaha uu leeyahay abubakar. maalintii nebigu uu hijroonayena iyo abubakarna waa kii wiil uu dhalay abubakar sidiiq oo la dhaho cabdillaahi warka uga soo qaadi jiray magaalada maka ee godkii nebigu uu ku jiray iyo aabihii oo abubakar ahaa akhbaarta habeenkii ugu keeni jiray. kadibna caamir ibnu fahiira ayaa adhiga intuu soo dareeriyay raadkii cabdillaahi baabi'in jiray. marka waxa uu ka qayb galay isaga oo caamir ahina dagaalkii beder iyo dagaalkii uxud, wuxuuna ku shahiiday dhacdadii foosha xumayd iyo shirqoolkii loo geystay muslimiinta ee 40 nin ee la shirqoolay ee loo yaqaanay bi'ru macuuna. meesha la bi'ru macuuna ayaa qolyo gaaleed intay nebiga u yimaadeen ka dalbadeen saxaabo diinta dadka farda oo maaragtay dadka diinta bartay quraanka. dabadeedna nebigu 40 nin buu ku darayo 40kiiba dhegtaa dhiigga loo daray oo waa la laayay oo shirqool baa loo dilay. waxaana kamid ahaa ninka la yiraahdo caamir ibnu fahiira oo goobta markaa ku shahiiday. ilaahay subxaanahu wa tacaala raalliha ka ahaadeen. waxa kaloo kamid ah walaalayaal dadkii afrikaanka ahaa ama dadkii midabkoodu ahaa midabka madow markaa waxa weeyaan saxaabiyaadka kamid ah gabadh la dhaho magaceeda Umm Zufar waayo. Umm Zufar waxa weeye waa gabadh markaa xanuunka suuxidda qabtay oo dhici jirtay sida xadiiska saxiixa Bukhariga uu tilmaamayo in gabadha Umm Zufar la dhahdaa ay u timi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay tiri yaa rasuulallah waxa aan qabaa sarac oo ah suuxid, yacni si u joogto inay suuxdo. dabadeedna cawradayda ayaa kashifanta ayay tiri oo faydanta. ilaahay waxaan ku weydiisanayaa ilaahay inaad ii barido inuu ilaahay xanuunka iga dulqaado. rasuulku wuxuu ku yidhi salawaatullaahi wasalaamu calayh laba mid un kala dooro, inaan ilaahay kuu baryo oo xanuunka alla kaa bogsiiyo iyo inaad ku samirto oo aad jannada gasho. riwaayo kale waxay tilmaamaysaa inaad ku samirto oo aan ilaahay kuba xisaabininba. dabadeedna waxay tidhi yaa rasuulallahi waxa weeye waxaan doortay inaan markaa waxa weye jannada galo ama xisaab la-aan ayaan doortay. mid keliya un iigu ducee oo ah marka aan suuxo inaanan kashifmin. axaadiistu markaa waxay tilmaamaysaa inuu rasuulku ugu duceeyay inaanu ilaahay cawradeeda gabadha miskiinada ah kashifin. saxaabada rasuulkuna waxay dhihi jireen ilaahay raalliha ka aaday gabadhaa suuxi jirtay Umm Zufar ayaa la dhihi jiray. gabadh dheer oo madow bay ahayd. marka xanuunku uu qabto suuxiddu waxay tegi jirtay kacbada waxayna qabsan jirtay daaha kacbada. ilaahay raalliha ka aaday wixii ducadii rasuulku markuu u duceeyay intaa kadibna ilaahay subxaanahu wa tacaala ceebaheedii iyo markaa cawreedkeedii wuu u asturay. ilaahayna muu kashifin tabaaraka wa tacaala. waxaa kaloo kamid a walaalayaal gabdhaha iyaga laftigoodu afrikaanka ahaa ama dadka madow ahaa. gabadhii markaa iyaduna nebiga sallallahu alayhi wasallam masaajidka u nadiifin jirtay ama masaajidka rasuulka xaadhi jirtay ee nadiifin jirtay. gabadha magaceeda markaa waxaa la dhihi jiray Umm Muhjan. xadiiska saxiixa ee haysna saxiix Bukhariga ku yaala waxa uu tilmaamayaa in gabadhii nadiifin jirtay masaajidka ee Umm Muhjan la dhihi jiray ay gabadhaasi ay ahayd gabadh afrikaan ah oo madow. dabadeedna habeen ayay geeriyootay oo markaa waxa weeyaan ajasheedii dhamaatay. saxaabadii rasuulka ayaa markaa xabaasha ku duugay oo ku aasay xabaalaha muslimiinta. markii nebigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu yimi masaajidka ee uu waayay gabadhii la dhihi jiray Umm Muhjan ayuu weydiiyey gabadhii aaway. waxaana loo sheegay inuu ay markaa waxa weeyaan dhimatay. nebigu wuxuu dhahay maxaad iigu sheegi weydeen? waxay dhaheen yaa rasuulallahi waad huruday. nebigu wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam dalluunii calaa qabriha, qabrigeeda iyo xabaasheeda i tusa. deetana xabaasheedii baa la dul keenay. markaasuu ku tukaday sallallahu alayhi wasallam. markaasuu yidhi xabaalaha muslimiinta ah oo dhan ayaa mugdi bay ahaayeen, waxa ilaahay ku nuuriyey oo ku ifiyey salaadii aan ku tukaday buu yidhi rasuulku sallallahu alayhi wasallam. waxa kale uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka qof muslim ah uu geeriyoodo
waxa weeyaan inaad ii soo ogeysiisaan ayuu markaa rasuulku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam. waxaa kaloo jirta walaalayaal gabadh kale oo saxaabiyada oo iyaduna afrikaan ama midabka madow ku abtirsan jirtay. gabadha magaceeda waxaa la dhihi jiray waliida waayo haddaba waliida waxay gabadh afrikaanada ama aan dhahi karno gabadh waxay imra'atun sawdaa gabadh madow bay ahayd. axaadiista qaar baa tilmaamaysa inay ahayd gabadh carabiyada laakiin midabkeedu uu madoobaa. gabadhaasi addoon bay ahayd. marka axaadiista saxiixa bukhaariga ku taalla waxay sheegaysaa in gabadhaasi ninkii ama dadkii ay addoonta u ahayd ay ku tuhmeen inay xaday alwishaax. wishaaxu waxa weeye waa maro qaali ahayd xilligaas oo dumarka aroosadaha ah ama caruuska ah iyo dumarka xarragoonaya ay dhexda ku xidhan jireen oo beel oo kale ama suun oo kale ahayd oo maro qaaliya ahayd midabkeeduna uu ahaa casaan ama guduud. marka gabadhii lahayd wishaaxaas ayaa markaa musqushay gashay alaabteedii iyo maryaheediina bannaankay dhigtay. marka waxa soo duushay shimbir markaa la yidhaahdo alxadu ama alxad oo la yidhaahdo waa tan faragoosatada ee wax walba lahaad. wishaaxi ama maradii guduudneed ee casayda beelkii casaay quruxda badnaa ee qaaliga ahaa ayaa u milaysay inuu yahay hilib. deetana way dhufatay oo way la tagtay. subxaan allah. dadkii markaa ay gabadhaasi la joogtay waxay ku tuhmeen in ay iyadu qaadatay maradaas. marka waxa xadiisku uu tilmaamayaa in la wada baadhay jidhkeedii meel walba laga baadhay xataa fii qubuliha xataa xubinkeedii taranka ay baadheen walciyaadu billah oo ay garaaceen ama dulmi badan ay u geysteen. ayaduna ay leedahay shimbirtaa faragoosatada ayaa qaadatay. kadibna iyada oo meeshii dul taagan oo kuwii ay garaacayaan ama ay baadhayaan ayaa shimbirtii dib usoo noqotay. dabadeedna maradii unbay soo tuurtay. waa xagga amar ilaahay un weeyaane subxaan allah. markaasay tiri waa tan wixii aada igu canaaninayseen ama aada igu dilayseen. kadibna way sii daayeen oo markaasay waxay timi magaalada madiina weyna islaamtay. caaisha ayay la joogi jirtay. caaishana waxay tilmaamaysaa xadiiska caaisha ama warinaysa ummulmu'miniin in nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisii ay ku lahayd meel yar oo markaa ay ku cibaadaysato. markaa maalin walba waxay akhriyi jirtay gabay. waxay dhihi jirtay wa yowma alwishaaxi min acaajiibi rabbina alaa inahu min baldat alkufri najaani. maalintii wishaaxu waa maradii aynu tilmaamnay dhexda lagu xidhan jiray. maalintaasi waxay ahayd maalin ka mida maalmaha ilaahay ee cajabta iyo yaabka badan bay dhihi jirtay. alaa inahu min baldat alkufri najaani. beledkii kufriga iyo gaalnimada maalintaasu ilaahay iga badbaadiyay bay dhihi jirtay. gabadhaasina gabadh madow oo afrikaanada bay ahayd. insha allahu tacaala muuqaalkeen aan intaa kusoo koobno iyo asxaabtii rasuulka ilaahay raalliha ka ahaaday dhammaantoodba kii afrikaan iyo kii caddaa iyo kii madoobaabe ilaahay dhammaantood ba raalliha ka ahaadee aynu ku baranay asxaabta rasuulka ee kasoo jeeday qaaradda africa ama sinjigoodu uu ahaa sinjiga madow. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.